السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضمان أمد كحنا يوتيوب جنال كسورة official وأنا عبد الله عبد علي. ما أنتم حيدين وضع برنامج الرجينا ضمانته إنه وضع في عندنا دولان جارسيا وحكمة آد مهمة والرجينا نصد هذه نسدد إن واحد بدن يكبدل الدولان هدولان في قارتون السيا وحرجينا إن أبص عندهم تان. حكمة دين كرواد وحلا ذا كو كديرو صاحب كحون كاسو مر والبقول فلانقية ضدك كلا عيبهود. waayo qofka saaxiibka aad ka dhiganayso waa inaad iska fiirisaa ama iska tijaabisaa waayo qofka saaxiibka aad la tahay hadii mar walba uu ku tusaayo dadka kale ceebahooda waa dhibaato waayo walaalkaaga ceebtiisa qari si ceebtaad u qarsoonaato hore loo yeeyo marka koowaad waxa waaye ka dheeraw saaxiibka xun kaasoo mar walba kula falaanqay ama kula meel dhigay dadka kale ceebahooda labo waxa jira wax la yiraahdo kalkaaliyaasha caawi yani xabsida waxa kalkaaliyo ama caawiyaasha xabsida wax la yiraahdo كو waxa way walaac ina walwal aad dareento adiga waa caawiyaha xabsida labo waa go'aan la'aan inaadan go'aan gaarin ama go'aan aadan qaadan karin hadii go'aan aadan qaadan karin waa caawiyaha xabsida saddex waxa way shakiga qofka dumar shaki badan yahay shaki badan oo ku jirana yaani xabsidiisana banaanka ay iimaanaysaa marka xabsida waxa caawiyo ko waa walaaca labo waxa way wax loo yaqaan go'aan la'aan inaadan go'aan aadan gaari karin wax walba aad sameynayso go'aan adiga iska leh nafsadaada aad go'aan gaari karo hadii aad rabto inaad waxa sameyso adoo kugu xiran go'aanka saddex how adeegsan yani hadal xun hooyadii ku bartay hadalka waayo hooyo markii la yiraahdo qof walba uu qiiroonaya waayo hooyo 9 bilood ee caloosh kugu soo siday walaa kula soo martay dhibaato kula soo martay way ku soo korisay aaba waxa laga yaabaa in yani habeenkii uu guriga yimaado maqribkii oo kale subaxina uu dheelmado shaqo ku maqayaan inta kale guriga wax kula joogo hooyo waay ayda sida loo hadlo ku bartay ayda cunno ku siisa ayda kulkulisa marka hooyadii hadalku soo bartay hadii hadal xun aad raado aydan dibkeeda leedahay waxa rajayna hooyooyinkeena in yani si wanaagsan ay u dhaqmi doonaan dulaan gaarsiyo afar nolosha kama dhamaata caqabad laakiin waxa jira xal loo gudbo qof walba yani dulinta saaran tahay caqabado badan ayaa la kulmaysaa dhammaantooduna waxay leeyihiin xal loo gudbo qofka hadii uu san garanayna caqabada maanta uu la kulmay weeyga uu ugu baxsan lahaa ama weeyga uu ugu gudbi lahaa caqabadaasi aydan waa dhibaato marka caqabad walba oo noloshaada ku timaado waxay leedahay hab loo gudbo marka hadii for example caqabad ay kugu noqoto in yani adiga horumar aad gaarto ama noloshaada aad horumariso ay caqabad ay kugu noqoto waxa jira way adiga aad ugu gudbi kartaa caqabadaas ku hortaagan in yani noloshaada ka dhaadhiciso waxaan inaad sameyn kartid wax aan la qaban karin dunida ma jiro laakiin waxa waa qof walba xabsi ayaa u geynaysa xabsida number 1 iska saaraaday midna shanaad waxay leedahay marna ma qasaaraysid inta ku jirto tijaabo waayo for example maanta waxa laga yaabaa inaad tijaabiso sida baawar loo sameeyo isku dayday waad keeni weeday haddana waxay u baahan tahay tijaabo kale laakiin hadii aad tiraahdo waaba sameyn waaye qasaaran ku galay ama waqti ay galum waa sameyn kari waaye sidee marka lagu noqdaa waayo wax mar walba aad tijaabisid aad ku celcelisid ayaa horumar loo gaaraya marka ma qasaaraysid inta ku jirto tijaabo la yiraahdo inta qasaaraysid inta ku jirto tijaabo wax walba waa tijaabo isku day waad guuleysanaysaa laakiin isku day waxa la yiraahdo isku dayga wuxuu ka wanaagsan yahay isku day la'aanta marka wax badan isku day si adiga horumar aad u gaarto waa hadii aad rajaynayso in nolosha wax badan aad ka qabsato mideena lixaad waxay leedahay guuldarada ma ahan dilaaga nolosha ee waa dhisaa nolosha guuldarada ma ahan dilaaga nolosha ee waa dhisaa nolosha waayo maanta hadii aad guuldareysato birito waa guuleysanaysaa hadii maanta aad guuldareysato waxyaabo yar yar oo yani adiga guuldaro ku keen ee jiraan birito ayaa dib u saxaysaa birino waxa sameynaysaa horumar aad u weyn wax badan waa qabsanaysaa qof aan guuldareysanina horumar ma gaarabo qof walba waad aragtid oo horumar gaaray ama noloshiisa horumar yahay guuldaro la soo gulmay macaanka guuldarada ee leedahay uu soo arkay macaanka guusha ee leedahayna uu arkay adiga isku day si aad u guuleysato labaatodoba waxay leedahay aarsi ugu weyn ee aad ugu aarsan karto dadka ku xumeeyo waa inaad iska cafisaa oo kaliya aarsi ugu weyn aan qof bil aadana oo ku xumeeyo oo aad ugu aarsan karto waxa waaye iska cafiska waa shay qaali waayo hadii maanta qof oo ku xumeeyo maanta waxaad la kulmaysaa boqolaal qof oo ereyo xun adiga dhibsanaysa ku dhahayo kaliya waxa u sameysaa inaad cafiso aan noqdo lacagtaas aqoonsiga kaliya qofkaas uu ku cabinaya